رمي بانك الوحم راينا وافقيسي رالياني كان قوي كورنا قبيودا kulanti wanaagsan kusoo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment waa mar kale muuqaal aan ugu talagalnay daawadayaasheena haddaan nagu cusub tahay subscribe noo saar isla markaana haddii muuqaalkan aad ka hesho like noogu dhufo qaybta ka helitaanka ay noo muujinaysaa si aan muuqaalo kale aan u soo gudbino dad la wadaagi kartana asxaabtaada u sii share garay maantana muuqaalka waa xubinteennii toosiyaha jacaylka waxaan uga hadlaynaa muuqaalkeenna maanta 7 xeeladood ama 7 hab oo u sahli kara shukaansiga qofka baraha bulshada ku jira ilaahi daacadana abada kalgacayla burta lubiga koriyo dareemi wadnaanta maray ugaano qaarkiin ayaa laga yaabaa inaad isweydiisaan sida ay ku suurtageli karta arrintan shukaansi tagin oo ka fogow shuruudahan ayaa lagu yiri haddii aadan ka helin jooji haddii aadan jecelayn qof mar dambe ha arkin isku day walba waa halis waxay keentaa daal waxay kugu beertaa murugo naftaada ah iyo asxaabtaadaba qodobka labaad wax aad ka fakarayso aamin haddii aad ogaato digniin markasta u qaado si dhaba waxaa jira dareen ah in laga fakiro waa qaladkayga 3 daraasad dhawaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in markii ay timaado fariimaha la isku diro la yareeyo boqolaal qof mar kaliya kala hadal online-ka sida ciyaaraha aad u ciyaarto online-ka waxay ka luminayaan waqtigaaga ku bartilmaamayso waqtigaaga aad la sheekaysanayso asxaabta adigoo muhiimadda u badan siinaya kuwa u muuqda inay yihiin kuwa ugu rajada dhow 4 xeelada shukaansiga waa in aad qabiir ku tahay ugaarsiga goobaha ay ku badan yihiin xulashada qofka aad rabto noqo qof u haasawo taga goobaha dadka qiimaha ku leh ay joogaan shukaansigu waa ciyaarta tirooyinka oo kale soo raadi goobta halista ah ee ay taallo dheemantu fogee sahankaaga ha aaminin ganacsiga xayeysiinaya in ay iibiyaan dheemanta keligood waa been oo sahal laguma helo qofka aad ka dhex dooranayso shukaansiga baraha bulshada iyadoo inta badan dadku ay isticmaalaan WhatsApp, Facebook, email iyo weliba aalado kale oo ay Fiverr-ka ka mid yihiin ayaa haddana 5 waxay leedahay saaxiibo raadi ugu horeyn xiriirka marka hore ka bilow saaxiibtinimo cilaaqaadiyada ugu fiican waxay dhacaan markaad bilowdo saaxiibtinimo kadibna aad isku bedesho shukaansi dabacsan waxa dhacda in aad si fiican u barato qofkaas inta aadan shukaansan 6 noqo qof dabacsan ha u dhaqmin si qalafsan ayaa lagu leeyahay waxaad u malayn kartaa inaad og tahay waxa ku soo jiidanaya laakiin haddii aad xakamayso asxaabtaada ama aad liis badan iska tuurto waxaa laga yaabaa inaad weydo qof muhiim ku ah oo jaanis ku raadinayay inuu noqdo qofkaagii qodobka ugu dambeeya ee 7 noqo qof degan oo macquula wax aadan raali ka ahayn ha samaynin ayaa la daba dhigay hal dhibic oo baraha bulshada internetka maaha inaadan lahayn xiriiro caadi ah sidaas darteed waxba kama ogid qofka kale baraha bulshada dadka ku barta jaanisyada lacagta ama xiriirada aan muhiimka ahayn waxa halis ah in ay ku horseedaan inaad go'aan ku gaarto tirtirista asxaab wanaagsan oo aad leedahay hadda xubinta toosiyaha jacaylka waxa ay ku talinaysaa in qofka uu dadanimadiisa uu marka hore ku qiimeeyo qofka dabciga wanaagsan uu ka dhigo mid muhiimad gaar ah siinaya u dhagan nugul sheekadiisa dhageysta la taliya wanaajiya garab istaaga xitaa isagoo xiriir aan kala dhaxaynin qofka gurigi farxadaan dhisay qofkan koriyo ayaan cashaqan galay u qabo admu igarabiyo
aan ka heli guud ahaan daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabaynayna xubinta toosiyaha jacaylka Salma Falog aan entertainment ayaad ka daawanayseen waad ku mahadsan tahay inaad na daawatay oo muuqaalkan aad la socotay haddaad ka heshay like noo saar si ay dhiirigelin noogu noqoto intaan dib dambe isku arki doonno muuqaalkan mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo qofkii dusha ka dhaliila ana jara oo ka dharta qofkii nacab dheligaaga ana jecel oo ku dhaqta qofkii dusha ka dhaliila ana jara oo ka dharta qofkii nacab dheligaaga ana jecel oo ku dhaqta